buundadan haddii la dhiso waxaa kor u kici doona ganacsiga ayaa dadkii u sahlanaan doona, socodkii baa sahlanaan doona, dadka ehelka ah baa isu tagoodii ama isbooqashadoodii u sahlanaan doontaa, qarashka hata oo lagu gudbayo iyo waxaas ayaa yaraan doona. dhalinyarta hata markii mashruucan uu socdo xirfadaha inay bartaan waa muhiim, taasaa ka mid ah inay shaqo badan ay ka helaan hawshaas hayto markii la bilaabo ayaan filaynaa insha allah. iyo guud ahaan maxaa la dhahaa ganacsiga inuu aad iyo aad maaragtay u ballaarto, waqooyi bari guud ahaan ay ka faa'iidaan. countiga Manderana waxaa ka soo geli doona dakhli fara badan, canshuurta la aruurinayo iyo dowladda Kenyaba guud ahaan. marka horta kuma khasaarayno, faa'iido aan xisaab lahaynna waa ka heli doonaa. marka waxaan rajeynaa insha allah inay dadku inuna ay taageeraan. waxaa loo baahan doonaa inaan inta ka sheegaan rabaa buundada markii la dhisayo waxaa ka jira waddo ilaa buundada aadayso ayaa la dhisi doonaa. dhinaceenan Mandera waa ilaa waxaan qiyaasina 3 kilomitir markii laga soo qaado waddada weyn oo maaragtay Mandera soo geli doonto oo la dhisayo ilaa buundada iyo webiga 3 kilomitir waxay dhex jiri doontaa qayb ay dadka ama beero ku leeyihiin ama ay guryo ka dhisteen ama ay hay'ado kale ka jiraan iskool iyo waxaas. ama waxaan ka arkaynay goobtan oo biyaha lagu safeeyo oo lagu nadiifiyo water treatment plant oo countiga uu leeyahay. marka mashruuca intaas oo dhan buu saameyn ku yeelan doonaa. waa in ama la durjiyo ama dhulka qayb ka mid ah waddada la dhisi doono la siiyay noqoni. buundada nafteeda waa buundo weyn, waxay jeexi doontaa ku dhawaad 200 mitir ka badan. macnaheedu waxay hawadaasi maraysaa. waa buundo casri ah oo weyn oo dadka iyo xoolaha hata ay isticmaali doonaan. daadkana laga yaabaa inuusan saameynin u badanta si hadda loo xoojin doono iyo qarashka geli doono ma yara. wixii de ilaahay uu keeno oo bini'aadan ka taan badan ma ogi, laakiin inta hadda la og yahay oo aan horaan u aragnay waxaan u maleynayaa in laga badbaadi doono insha allah. marka waa mashruuc marka labada dhinacba dadkeena degan dhinacan Mandera iyo dhinaca Suuftu ayaan codsi waxaan u gudbinayaa inay fahmaan waxay ku taageeri kari lahayn ay ku taageeraan. dadkeena beriyaan waxay barteen inay maxkamadu ordaan iyadoo wixii la xalin karo. inaan maxkamadaha loo ordin, inaan maaragtay wixii ka hor istaag oo aan faa'iido lahayn. waxaan sugaynay horumarkan muddo malaha 60 iyo dhowr sano ka hor wax la sameyn lahaa baan hadda helaynaa. dadka kale aadan uga dambeynaa. Kenyada kale waxaan uga dambeynaa 90%. annaga aad baan u dibdhacnay. mashruucyadan hadda la sameynayo neediga uu maaragtay ka tirsan oo wadadan hadda la dhisay ay maaragtay ay ka mid tahay. buundadan hadda la dhisay labada buundo dhinaca Ramona waan ka sameynaynaa. magaalada Ramo waa isla sidii ayadana buundada waxay jeexi doontaa guryadeed beere ay dadka leeyihiin. waa loo imaan doonaa waana la wargelin doonaa inay ka durqaan. kulleyba inay ayadana ay support ama ay maaragtay ka qayb qaataan sidii lagu hirgelin lahaa oo waxba aysan ka hor imaanin.